Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Dhageysta oo misku aragtay cunaha oo ku xanuuna, qandho wada taqarqariyo iyo dhaxan, liqidda oo ku dhibta, surka oo ku xanuuna, caajis iyo murqo xanuun, sidoo kale barar iyo danqasho ma ka dareenta qanjirada ku jira lafta daanka hoosteeda. Haddii jawaabtu haa tahay, casharkan adigoo kugu socda ee ka faa'iideyso lana wadaag bulshada. Magacaygu waa Dr. Mahdi, waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka East End. Astaamaha aan kor ku soo xusay waxaa iska leh xanuunka quumanka, waa caabuq ku dhaca cunaha oo ay keento jeermiska bakteeriyada weliba nuuca loo yaqaano Streptococcus. Sidoo kale jeermiska fayraska wuu keeni karaa quumanka khaasatan hargabka kadib, laakiin uma dhib badna sida kan bakteeriyada oo kale. Quunku waa laba qanjir oo yaryar oo ku kala yaala qaybta dambe ee dhuunta weliba dhinacyada dalqada sida sawirka ka muuqdo. Waxay qayb ka yihiin difaaca jirka iyagoo shabaq u dhiga jeermisyada afka soo gala. Markuu jeermisku ka tambato, caabuq ay qaadaan wayna bararaan. Bakteeriyada caabuqan sababto waxay badanaa tarantaa waqtiyada qaboobaha iyo roobabka, khaasatan marka dadku guryaha ku wada jiraan. Waxaa caabuqa cunaha lagu kala qaadi karaa shumiska, calyada, duufka, qufaca iyo isku neefsashada. Sida awgeed waa muhiim in dadka waaweyn oo xanuunka qaba aysan hoosta ka gelin carruurta yaryar. Quumanka qof weyn iyo yarba wuu ku dhacaa, wuxuuna aad ugu badan yahay carruurta weliba kuwa da'doodu u dhaxayso 5 sano ilaa 15 jir. Maadaama uu xanuunkan leeyahay astaamaha malaariyada, dad badan malaari ahaan ayay isku daaweeyaan. Waxaa xanuunkan lagu gartaa iyadoo dhinaca dambe ee cunahaaga laga fiiriyo gaduudasho, barar iyo dhibco cad ama jaalle ah oo quumanka ku dul samaysma. Sidoo kale baaritaan dhinaca dhiigga ayaa laga qaadi doonaa si loo ogaado difaaca jirkaaga iyo heerka uu caabuqa gaarsiisan yahay. Haddii lagaaga shakiyo jeermiska Streptococcus oo ah jeermis jirka kale u gudbi kara, si gooni ah ayaa lagaaga baari doonaa. Haddii la xaqiijiyo caabuqa quumanka, waxaa lagu siin doonaa qalajiyaal, taasoo ay ku xiran tahay heerka uu xanuunkaagu gaarsiisan yahay. Haddii quumanku ay noqdaan mid soo noqnoqda, khaasatan ilmaha, waa laga gooyaa oo qalliin ayaa loo sameeyaa, sababtoo ah wuxuu xanuunkan saameeyaa korriimada carruurta, wuxuuna jeermiska weerari karaa xubno kale oo jirka ka mid ah sida wadnaha, kilyaha iyo kala-goysyada. Carruurta looga baqay xanuunadan waxaa la siiyaa cirbad antibiyootik ah oo bil kasta lagu durayo si jeermiska uusan dhaawac u gaarsiinin xubnahaas. Hadduu xanuunka quumanku dhib kugu hayo ama kugu soo laalaabto, waxaad kaga hortagi kartaa adigoo subax kasta inta aadan wax cunin ka hor ku luqluqda biyo qandac oo cusbo leh, taas oo ka hortagaysa in jeermisku ku dhex tarmo quumanka. Laakiin haddii aad qandho isku aragtid, waxaad u baahanaysaa inaad qallajiye qaadatid. Halkaas ayaan kaga baxay casharkan. Wixii su'aalo ah fadlan noogu soo gudbi qaybta commentiska ee muuqaalkan. Waana mahadsantihiin.